Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso. Kusoo dhawaaw sheekadii waa suga iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii afaraad. sheekada qaybteedii saddexaad waxay inoo joogtay warsame asagoo guud ahaan uga hadlaya xaalkii dhaanraac, gaar ahaana dantiisu tahay inuu libta abwaannimo ka xigsado waa suge ayuu dadkii u tirshay gabaygii cilmi raage oo ahaa qaybta afaraad. sheekada waxay ku bilaabmaysaa toogaysi boo galay furqaan tahajudkiisiiye towreed iyo injiil baa islaam taabacod yahay, xaq iyo tamaama xafiis loo tallaabsadaaye, meeshii tembiga ooli jiray buugaag baa tubane, waxay culimo tawfiiq u tahay turuba naareede, towxiidkii waxaa looga tegay leero tacabkeedii, sida toorka iyo kaasha baa laysu tiimbadaaye, la tallaalanyaysee kufriga loogu tiirsaday. dadkii oo gabayga ka faaloonaya murtidiisana wadajir u dhuuxaya ayaa dagaal lama filaan ee dhex maray wiilkii dhaanraac ahaa iyo haweeney duq ah oo baabuurka meel dhexe ka soo raacday, fadhidana kursiga kiisa xiga. dagaalka wuxuu ka dhashay dhaanraac oo xabad sigaar ah shitay, duqdii ayaana ku tiiri ha igu afuufin qurunka afkaaga ka socda. dhaanraac asagoo inta tabartiisa ah dadaalaya ayuu aftalyaani ku yidhi iskoose raalli ahaaw. duqdii waxay u qaadatay inuu wiilkii caynayo, markaase intay la baxday dambiishii alaabta ku siday madaxa kala dhacda oo u celcelisay ilaa gacmaha la qabto. haddaba muxuu falay dhaanraac? intuu istaagay oo gacmaha shaarka laabtay fiirsa la baxay ayuu yidhi duqda iskeen. dadkii baabuurka saarnaa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka badbaadshay duqdii ayaydiis lafaca ahayd, inkastoo uu murankoodii dheeraaday ilaa oo dadkii wada saameeyo. oday ragga ka mid ah ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyay si oo murankii u joogsado. wuxuu duqa dadkii u bilaabay asagoo ku luuqaynaya labadii beyd oo u dambeeyey gabaygii cilmi raage oo uu hore dadkii ugu mariyey warsame. beydadku waxay ahaayeen sida toorka iyo kaashaba laysu tiimbadaaye, la tallaalanye see kufriga loogu tiirsaday. ninkii odayga ah markuu dadkii muranka saameeyey maskaxdoodii mar kale ku baraarujiyey murtidii xiisaha leed asagoo isticmaalaya xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafina islamarkiiba waa suge ka codsaday inuu asagana markiisii murti kale u raaciyo gabaygii warsamo tiirshay. waa suge intuu dadkii isha la raacay wejiyadoodana ka gartay in hadalkiisa xiiso loo qabo ayuu u marshay shirab ka kooban 4 beyd oo min 2 lugood ah. waa suge wuxuu yidhi dhulku dadkoo dhan wuu dhaxays, dheeshaasa ninba meel dhigtaa, dhaxalka hidde waa dhigaal, wax noo dhimanna waa dhacaan, dhicis lagama dhursugo, wixiisku dhiiga ways dhalaan, dhaanraac dhaqanka waalidkood dhashaa ka leexataan dhahnaa. waa suge oo damacsan inuu shiribkiisii guurowya raaciyo iyo warsame oo sugila niyadan iska leh yaa mar keliya hadalka ku siiyo ayaa magaaladii xamar la soo galay. run ahaantii farxad gaar ahaaneed ayay leedahay imaanshada magaalada xamar adigoo ka timid dibadda ama gobolada gudaha, laakiinse waxaa maalintaas dadka baabuurka saarnaa qaarkood kala qiimeynayeen sheekadii murtida iyo xiisaha leed ee waa suge iyo warsame. dadkii intiisa badneed waxay baabuurka ka degeen ayagoo niyad sami u muujinaya labadii oday. dadkii oo dhan qarbaqarbe ayay baabuurkii ugu degeen, maxaa yeelay waxay magaalada ku soo beegmeen maalintii bannaanbaxa looga dhigayay aayidaadii ku dhawaaqidii qoraalka afka Soomaaliga. dad rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel intaba leh ayaa dhabayaasha magaalada sidii mawjadaha badda u qulqulaya. waa suge iyo warsame markay baabuurkii ka degeen ayagoo ballamaya, laakiin markay arkeen dadkii faraha badnaa halkudhigyada ay ku dhawaaqayaan iyo habsamida ay u socdaan la dhaceen ayay iskaba raaceen oo dhowr daqiiqadood la socdeen. waxay odayaashii inay si wanaagsan u hubsadaan waxa meesha ka socda, sidaasna waxay ku ogaadeen sababta bannaanbaxa. aad ayay amuurtaas odayaashii u saamaysay kadib markay si wanaagsan loogu warramay. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii afaraad ee sheekadii waa suge iyo warsame.